وزير الدولة الفدرالكا وزير عبد الرحمن وزير العدالة وزير كلها تقالين وهليا عبد الجليل حسن عبد النور وعاوي مرقى أنا سونا ويا ده صعب مرال ويا ولا لي ومالي فرحة ومالي هذه دائما نقوله وعن هذه وما عندنا يا دولة الصومالية يا وزير النظام فدرالكم كشقية أو شقية أنت كشقية صيبة إلى أي أجر حسنا كسي إن إسلامه وعن وزير كيجا عبد الرشيد حسن عبد الله عبد الرشيد جلال وما عندنا يا سيدك يا سيد مدله وضد مدله والشرف كله ووناك كله وأطرد له وأطرد سري دل كيسة يا دباتوي كي أبارة يكجرن وأوقع قاتمات إن مرتاي أوقاته الشيء نبض وقيمة بدل هذه أدبا وزير أنا وعادي تودي يا وزير العدالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزير عبد الرحمن ديري وزير عبد الرشيد جنن قدوميها iyo maamulka magaalada Banxaawo iyo gobolka Gedo iyo shacabweynaha halkaan jooga reer Gedo gaar ahaan magaalada Banxaawo waxaan marka hore idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan aniga oo ku hadlaynaa magaca madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi maxamed iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane maxamed xuseen rooble idin soo gaarsiinaynaa salaan iyo hadiyad idinkaga timid madaxda qaranka Soomaaliyeed dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa farxad iyo raynrayn u ah isla markaana ay si weyn u bogaadinaysaa go'aanka taariikhiga ah ee uu halkan ku yimid wasiir cabdirashiid cabdinuur janan oo aad ogtihiin doorka uu ku leeyahay nabadda guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolkan wasiirku waxa uu halkan ku yimid laba arrimood oo isxambaarsan midda hore waa garasho iyo damqasho isagu uu gartay inuu qaranka Soomaaliyeed u hiiliyo inuu dadka magaaladan iyo gobolkan ku nool u hiiliyo taasoo uu ku qaatay inuu ka qayb qaato nabadgelyada iyo sidii loo soo aftari lahaa colaaddii halkan ka jirtay isla markaana uu dowladda ula shaqayn lahaa waxaa garashada wasiirka lagu qabay dadaal ay bixisay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan sidii isfaham looga gaari lahaa qabashadii dadka reer Gedo gaar ahaan wasiir janan oo ah wasiirka amniga ee Jubbaland iyo xiisadii jirtay sidii loo xallin lahaa labadaas dadaal oo la isku qabay waxay keeneen in iyada oo la wada jiro wasiir janan iyo maamulkii gobolka Gedo iyo saraakiisha amniga halkan la wada joogo in la wada shaqeeyo midnimana la muujiyo waxaan rabnaa inaan idiin sheegno go'aanka uu qaatay wasiir cabdirashiid janan ee halkan uu ku joogo waa hiil qaran oo taariikhi ah oo ku soo aaday maalinta ay mudneen waxa uu taariikhda ka garay taariikhda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedna waxay u hayaan abaalkaas iyo mudnaanta ay leedahay tallaabada uu qaatay waa mid ka farxin doonta qof kasta oo jecel sharafka iyo midnimada iyo quwadda qaranka Soomaaliyeed waxay kaloo tahay tallaabo ka nixinaysa cid kasta oo aan jeclayn sharafka oo aan jeclayn midnimada oo aan jeclayn in Soomaaliya ay sharaf lahaato ugu dambayntii waxaan halkan kala hadlayaa cid kasta oo ku hawlan wax u dhibaya qarannimada Soomaaliyeed waxaan leenahay maanta tusaale wanaagsan ayaad haysataan waxaan leenahay cid kasta oo isku dayaysa inay dadka Soomaaliyeed kala dhantaasho ogaada dunta dadka Soomaaliyeed waa ka fogtahay inta aad u malaysaan waana isaga dhow yihiin inta aad u malaysaan waana isaga tanaasuli og yihiin inta aad u malaysaan ma noqon karaan dad ajnabi oo dalkooda u adeegsado mana noqon karaan kuwa sharaftooda ku xadgudba sidaas daraaddeed wasiir waxaan ku soo gaarsiinaynaa adigana tahniyadaas iyo hambalyadaas waa kuwa mahad celinaynaa waa ku soo dhawaynaynaa intaan wasiir cabdiraxmaan dheere inoo soo gabagabayn waxaan jeclahay wasiirka in carabkiisa
aad uga maqashaan kelimadaha wanaagsan ee uu idiin wado iyo sababta uu halkaan u yimid. أولا وسيلة ولا سلوى أولا طبعا